مساجد كوالا قش قيام مشار ولا قطع ما غينا أكتين كان أنا ولي يكونوا ضربة كقطع مساجد إنا لله بشي إلهي أبو رأس كحري نيك كحشون ويا العتك كقاطع إلهي ولا لوش كقاطع ما آذن ودينية آذن من يسون لوش كقاطعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد ولا الله يالفضل يضو عاو waxay ku socotaa Sheikh Abdi Xirsi ninka idin la hadlayna waa garanaysaan waa Sheikh Ayub Sheikh Abdirsaaq Sheikh Ahmed waaye Sheikh fariintan iga gaarsiiya oo nasteexaynaya wax badanna qodobo badan oo dul istaagay Sheikh Abdi Xirsi shalay waxaan weydiiyay war lacagta qadar bixiso oo TV-ga labada propagandada TV-ga Al Jazeera ka baxa iyo TV-ga TRT oo Turkiga ah oo adiga iyo Sheikh Cabdiraxmaan ninka la yiraahdo la magac baxay sheekhaasna sheegto oo kala iyo ninka la yiraahdo Cabdiwahaab daalimkii daashtaha aad propagandada fidisaan ma lacagta qadar baa inay tadhabay waa galgalatay ilaa nabad iyo nolol iyo farmaajo aan la taageeri jiray baa tiri waa dul istaagaya dani baa had taageertaa baa tiri waa dul istaagaya waxaa tiri faarax macallin baa wax ka sheegtaa tiri waa dul istaagaya Sheikh Mustafa Cayade baa tiri waa dul istaagaya culimo wax ka sheegtaa tiri waa dul istaagaya Allah waa baa ku dhiman maxaa kamid ahaa nabad iyo nolol baad kamid ahayd Ayub baa waa dul istaagaya ayadan diyaaradda airsport oo aan ku weydiiyay aan ku ciidankii wax tadhaa oo aad muuqaalkeeda soo qaato tan uu yahay kaas muuqaalkaas uu yahay waxaa tiri diyaaraddan sheegay ma aha waa diyaaradda boosdur ma dhada diyaaradda ma kala taqaan aniga aqoon darray ugu sheegays laakiin waxa i cadaatay inaadan kala aqoon ba diyaaradda wax ka sheegaysid iyo diyaaradda ciidanka xoogaysa ayadana dul istaagay Cabdi Xuseen ka hormaro Cabdiyow horta ilaahaygi samaystay ee basharka ka dhigay ee aadanaha ka dhigay ninka lacagta ka qaatay ee laaluushka ilaahay ka qaatay horta aadana u daahimayo taasna waa cadayn kuwa xadgudmayo gafnayga ma aha saaxiibkeena waata ilaahay baa lacag ka qaadatay Cabdiyow masjidka dadka aad tusid ama adinka baa lacag ku qaadataa lacagta ka qaadatay salaadii alle baad mushaah ku qaadatay oo ilaahay ka heshoon weyd inaad farmaajo u hadashid iyo inaad fahad yaasid u hadashid iyo inaad qadar u hadashid miyaad lacag ku qaadanay waa kan lacagtan dhigayso Sheikh Cabdi laakiin reer Canada waxay aaminsan yihiin Sheikh Cabdi wadankan waaga timid ilaa hadda maalin ma aadan shaqo tagin masaajid un baad joogtay marka taa maxaa ka oranaysaa أنا أمزنده حدنا أنا أمزنده وسؤالان كويدي وأنا ديرن بان كوجو أوجا مركز سؤال بان كويدي مساجد كوالا قش قيام مشار ولا قطع ما غينا أكتين كان أنا ولي يكونوا ضربة كقطع مساجد بشي سبحان العاق كله بدن بعيش قيه بس نسيان ليه قناعسي بان ليه العاق بدن بعيسوقش بشي ما شاء الله ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله من نجينا الله من نجينا Cabdiyow horta ilaahay nin lacag ka qaatay oo beedka ilaahay inuu umada tujiyo soo tiriyay lacag soo tiriyay yiri inuu bini aadan lacag ka qaadanayo meesha kaaga jira umadaas noo xamaqaysa caawa bini aadanka inuu lacag ka qaadayo oo hadduu qadar u hadlo footo qadar u noqdaan lacag ka qaadayo haddaad farmaajo u hadashina lacag ba qaadanays haddaad fahad u hadlaysayna lacag ba qaadanays horta dee taa waxa cadayn kala iyadoo raadin ilaahay bay ku abuurtay lacag ka qaadatay ma farmaajo ay fahad lacag ka qaadanay dadkan aad u caayay ana hadda ku dhahay sababtoo ana waxay tiri lacag ku shaqeeyay tiri labadana kii lacag ku shaqeeyay marka kii waxa lacag ku shaqeeyay ilaahay lacag ka qaatay baa lacagna bini'aadan ka qaadanay oo ku shaqeeyay taasi waa arrin qodob halkaaga Cabdi Xirsiyow nin khamiis iyo waxa soo xirataa diin ba ku qaraarta أنا أيوب بان هذا عيد وحكي شاقه ورتني سياسي وحكي شاقه سياسة ده وحكي شاقه عبديو مقال كهذا أنا وحكي شاقي سي ساكا وكانه واحد وحكي شاقي سي نك مدحوينه جيبوتي إسماعيل عمرقيل واحد كنت لي حفايات بقى وحرمات حفايات عبديو شيخ باشاقاني ساي دين تأس شيخ كتهاي ما وقاش هاي بيانت محا فتدا أما غورها
ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle waxa ku xiran miyaad aragtaa oo manaagtisaata isdhageyso waa kana halka Ismaaciil Cumar Geelle markii labadii sano oo ku qornaa dastuurka u dhamaatay waxa loogu daray waa loo bedelay dastuurka saddexaad laga dhigo 3 terms haddana loo bedelo 4 terms haddana loo bedelo 5 terms now 6 terms buu rabaa inuu u tartamo yuu la tartamaya cidna isagaas la tartama xafaayad baa u xiran dhulka wixii ka sareeyay isaga cunay iyo qoyskiisa ma dhargaan waxna ma deeqaan bangiya u buuxa subxaanallahi casaa wajal ninkaasi waa nin siyaasi waa dhaliili kana Soomaaligu siyaasi u yahay waa Jabuuti Soomaali laakiin futadiisa iyo qoorihiisa shayga marada ama xafaayad iyo waxa gashan yaa ku sheegay Cabdiyo ma adaa waxa tahay kuwa dadka waaweyn wax ka bedela oo waa lagu geeyo xafaayad ka soo fudho maxay ka qabtaa diinta aad haysatid noocay tahay garan maye maxay ka qabtaa in been la sheego noocaas in qof aadan arag aad tiraahdi kastuuma cagaar u qaba ama xafaayad buu qaba maxay diintu ka qabtaa sheekhnimadaadu maxay ka qabtaa ma wanaagsan ama soo xun kaayaga horta dadka caaya caawa uma doogaanaysaa anigu siyaasi wax ka sheegaa qaarka sare baa wax ka sheega futadiisana ma galo hortiisana ma galo weligii Ismaaciil Cumar Geelle waxaan ka sheegay weligii ma oran anoo aayad daleelsanaya iska badaay anoo Ayuuba weligii ma oran xafaayad iyo waxba gashan weligii ma xaasha lillah waa nin weyn baa qaangaara gabdhaan dhalay gabdhaan dhashay صدق باتا من كل مدو walaalkaaga oo aad siyaasad u dhali kadib inaad futadiisa waxa marada gashan sheegtid diinta ku ogolaan loo sheegay hadaa sheekh tahay way karo loo saar diyaaradda halka boos ka kacday ciidankaas sibod gareysa waan ku waa ay sibod diyaaradaha daba furka oo ayagu hawada maraya wax allaale wixii saada daadiyaal yaada baarshu ku daadiya waa diyaaraddaas ciidanka u daadinaysa bahalkii waana diyaaradan boosa samadhax ay sheegtay daba furka uu diyaaradaha kala baro way taasaan ka leeyahay diyaarad miiga imaada tusin diyaarad ku rooyahay F25 na imaada tusin M75 na imaada tusin tangi airport boos dhex yaala imaada tusin inaad calo shaqaysatahay calo shilciyaala xogaaga qadar ku shaqaystaan ku tusaya waxa tiri daliil ayuu aqoon marihid baat xasha lillah ana aqoon inuu filan waa haysta aqoon inaan leeyahayna waxa ku cadaynaysa anoo ku faanin haddii aan aqoon lahayn adoo kala ka haysan lahaa haddaan aqoon lahayn oo jaahil ahay caama ah adoo kale aan dabagal lahaa sheekh mood lahaa midkii kale hadda Allah waa caydayo shalayna adigu aad caayaysay baan dabagal lahaa wahaabi dhalayo baa beenta ay sheega kaala isqarxi oran lahaa wahaabi dhalayo adoo kala baa wax oran lahaa kaalay adii alla ku rooyahay dadka ku dulay oran lahaa حسن دهر أويس بأفر حبوا حديثة أنت إيش شاقو بانقولي يجا هايضا يولاهي حبدا اللي لها أقول مركا أنا واحد أصلاً كجحرة بان ليه أقول واحد ليه هاي أنا كوجرته هايضا حق يلا أقول واحد ليه كوجرته هذا إذا يغير بنت لان حق يقول ليه أقول أنا كوجرته ليه عصبة إذا حق يقول ليه هاي أقول أنا كوجرته ليه حماه أنا كجتره وناجنا أنا قادر أقول تنصان ليه شيخ عبد الرسول وانا مد يكين بدباديسay waxaan isku haysanana hadii aan aqoon lahayn isma aan haysanayno caama aad ka haystaan bana Allah sida ku weydii adiga qodobkaasna iga qabso abdiyow waxa ku celcelisay nabad iyo nolol baa shalay nala ahayd baad waa nabad iyo nolol meedo sotay dintay ma aha doonta fitakada washatay mid kale abdiyow anu nabad iyo nolol shalay kula ma ahayn anu munaafiq ma ayuba farmaajo shalay qabiil baan ku taageeray هذا نقول لك أنا أدو أسوق من صاحبه أسبوعان أو لوقا واحد إسكندر هانو أنا أدو بهالك أنا لا ما نقصد وما دروي تقعنا وما داس واحد وش عشا وأنا كذا أدي على كورو يا براق دارها وإنك كقعد دارها وحكي معها إن أنا منافق هاي بشعب كالصومالي نوجي كان هوية أو حكي الشيء سياسي هوية كان دارو حكي الشيء أنتوا وحي أوجي هاي إن وح عروش يدك ترى عن شيء من أوجي أنا كذا له حبي يقول بأوجي إن أنا حمانين بأوجيهين وحي أنا دهلا عن شاشة ذكير هذا كله فيسا عبدي وين أنا كبر عقد ديراه شغله ما كان نودي نروح هين وأنا كبر عقد ديراه أنا إدي فريسين كده ما قاعد يدين بحين كده سياسي أنا بحنا أصلا بحنا قاعد بدي كده
waxaan dhahaa diyaar ku rooyahay adhaa isugu wax ka sheega waxaan dhahaa diyaar ku rooyahay ka wax ka sheega ka daba qaydin jiray simbiray daba socdaa ahayd anaan idin hogaamin jiray markaan nabadii nolol ahayn waxaa soo haray nabadii nolol xaliya ama nabadii nolol xaliya ma aaminsanay ummadana oo sheegi jiray anigu farmaajo la in adeerkayaan qabiil ku taageersanaa oo niman badan hawiya ka soo horjeeday haddana sidaan u taageersanaa dee farmaajo xilma hayo waa la caayay maxaa hadda nabadii nolol maxaa baa shalay taageersanaa daatay dee nabadii nolol waqti bay waa baxaa nimankaas waa tagay farmaajo in adeerkayba ahaa qabiilnimo aan ku taageeray qabiilnimo inta aan luuqa iska dhaxna adigu ba halkan ka leeyahay laakiin ma awood adigu tiraahday ma awoodid halkan ka tahay ashhadu an la ilaha illa allah muhammadar rasulullah bad bilaabaysa halkan marka adigu hadlayna waa ogta waxaan adigu ka wada hadal waa ogta waxaan adigu ka wada hadal marka taasana munaafiq ma ahaan markaan ku leeyahay abdullahi bin salol bati been mashi sababtoo ah dulmiga dadka ugu horeey adiga wax caayay adiga wax cadaabaya adiga dadka gaalaysiinaya adiga aan cabanayo taasna halkaas ka leeyahay nabadii nolol hadii shalay lahaana anaa idinku afdheeraa waxna idin yeerinayay magacyada laakiin aan kuma jirin adana markhaantiga cabdi xisiyow kuwii groupka lagu haystay ee wiilka sheekhaale cabdinuur waxa uu qori jiray groupka waxa uu qori jiray ee fahajiisa groupka xirtay anigu kuma jirin ee teamkaaga ah anigu kuma jirin lacagna kulama socon farmaajo markhaati waa nooli fahad waa nooli ninka la yiraahdo cabdinuurna waa nooli duquna waa nooli dhamaan waa nooli weligay allah lacag kama qaado haddaan lacag qaatana xorriyadda ma balahaan lahayn iyo balaaqada ma lahaan lahayn fahad yaasiin baa intaa qor idhiiraa intaa qor ba tusaale waxaa kugu filan anoo nabadii nolol idinkugu afdheer idin hogaamiye baa dagaalkii waxaa dhacay boosaaso oo uu ay isdagaaleen dowladda puntland iyo ilmadiyan yaan la jiraan waan ka soo horjeedsaday nabadii nolol dhammaan waxay la jirtay ilmadiyan la jirtay anna waa ka soo horjeedsaday waxay waa dula been lownin inta indhan waxaad gastaa duqa caawab maxaantii duqa cabdishii duqa maxaatiga anana adeerkay waa nooli waxa dhacday habeenkii inuu khadka ii soo galiyay fahad yaasiin khaliifka ku raba waay ma jecli aan wixii private aan meelaha ka sheego laakiin qisad dhacday waa laga soo gudbay hadee fahad daabar wada hadlay cabdishii unaga dhaxbay usugaa xiriir unaga dhaxbay daabar wada hadlay inuu ayubo ma ogtahay asad ismaan inuu teamkeen leeyahay kasaan ay teamkeen waa kuwe kasi nabad iyo nolol kasaan waxay nabad iyo nolol maxaa la yiraahdaa intuu yaabay biyo maxaa ku wada socon sana hadee agaasimi wuxuu ahaa nabad sugid agaasimi nin daaroodo niman hawiyaa la dagaalamaya anigu dagaalka dhinaca kaga jiray nabad iyo nolol waxa la yiraahdo anigu ma aqaan teamka groupka ku jirana ma ahad ilaahay aga sarreeyo wallahi oo billahi oo tallahi intaas ka maasin groupka cabdinuur qolada waxa uu qorana kuma jira anigu wuu qoslay marka wuxuu yiri marka waxaan yiri in puntland la dumiyo kuma aanu wada socon puntland ana wax ku aqaan intuu booday meenu saa umari puntland ka hadlamayno dagaal ka hadlamayo sideedan waxaan ku leeyahay asad ba ma waa waxaan ku yiri inaad asad taageersan tihiin lacag ku dulaysin puntland xabad ka rido laakiin anigu taa ma qaataan ku waayahay biina argacay halkaan lagu xiro halkaas ay hawsha ku dhamaatay horta ilaahay baa naga sarreeyaa waa dhaaranaya cabdishiduq oo igu soo xirayna maanta waa nool yahay been lownin intay in dheer waxaad gastaa ka rogo laba saar horta nabadii nolol hadii la ahaana ayuub baan ahaa qadiyadiisa qabiilnimaana kula socday maxamed cabdullaahi farmaajo maantana haddii uu meel aadaya ama uu qabiilnimo hiil iga soo baxdaan diyaar ula mana qarsado anigu nin hiil iyo hore halkaa qodobkaa dhig hadalkaagi waxaa ku jirtay qalinka dhig qoriga dhig oo ayuub qalinka qaado qodobkaasna waxaan kaa leeyahay cabdi xusiyow qoriga dhigi maayo qoriga haddaan dhigo munaafiq adigoo kale ah oo xasan daahiri raggiisii wata baa ay daba marayo maatada laynaya qoriga inaan dhigin taasaan kaa leeyahay qoriga adoo kalaan kala hor jooga ummadda reer puntland nin qadiyadiisa haddaan qadiyadayda gato ama cid i gadanayso waxaa tiri dani baa lacag ku siiya waa ay tuhintay walla iga tahay sinta isiin walla ma taqaanaa ilaahay soo ilaahay ma taqaanin walla iga tahay waan kuga tuhintay haddii cidi lacag bixinayso xasan baa ka lacag badan marxuumka ka lacag badan saas lacagta u faraqa 500 jeerna waa la keenay waana diiday dadkayga
iyo gurigayga Puntland ma guri karo haddaan lacag qaataba lacagta meel qabow waa lagu cunaaye furimaha dagaalka ma istaageen Cabdi Xirsiyo sidaadoo kale aan meelaha qabow ma aragto naa la fariisama taasna kaay halka waxa ku jira Sheekh Mustafa ba wax ka sheegtay baa Sheekh Mustafa Cabdi Sheekh Mustafa wali wax ka sheegay waagi dagaalka la saacana socday ba anigii adigu maalin isu wacna anigu munaafiq maahi waa sheegayaa wixii xaqiiqada waxaad tiri Sheekh Mustafa waa aamusan aan ka hadalsiin oo Muuse u yiraahdo Muuse isku qabiil weeye si u yiraahdo Muuse waa khan tahay dadka xasuuqada waayahay Sheekh maxaa yeelaa kala Sheekh Noah waxaad tiri hal la yiraahdo Sheekh Mustafa waxa la aamusanta maalintii baan hadlaa anigu Sheekh Mustafa maxaa la aamusan tahay in adeerow baan iri kelmad kala ma oran weligiin waxba sheegin waa Sheekh Liyan dhageystay Sheekh kaliya aan diinba ka raacday sababta in siyaasadda ku laban ma adiguna oo soo fariisto intii aan idoo karaatay ben allaacay YouTube ku jira iska saar YouTube ku jira intii aan Sheekh Mustafa ku tiri way shalay culimada wax laga sheego culimada adaa ka sheega adaa shalay isku garjinayay Sheekh Umar oo Daacish ka hadlay soo waxa uu tiri anagoo joogna markaan Maxamed Xaaji Yuusuf haysanay waxa uu tiri ana Sheekh Mustafa ana Sheekh Umar qalacanaya ii daabayt waa ka ana soo maranaya ii daabayt waa ka aga waa soo maranaysa waa jiijiyatayo hada Sheekh Umar lah waa ninka markii Wahaabiye la yiraahdo ugu codka dheer waa ninka ugu aqoonta badan waa ninka Wahaabiyada ka dambayso adoo ah ninka xaganayay afar xabo xadiiso darbiyada ka soo xagatay inta soo fariistay hadda kuma shan boqol jeer oo caay ana kuma u jawaab anigu markani culimo wax ka sheego siyaasi anu nin siyaasi oo siyaasadda soo fariistay ali wajiis baa ka sheeg day bani siyaasi halkaas fadhiya maal alla kana Puntland la weeraro leey waxa wax ka sheegay Cabdirashiid muxuu aniga leeyahay Maxamed Xaaji Yuusuf waa nin siyaasi waa ninka shalay garow kaga hadlayay Puntland baa midnimadeeda wuxuu ka hadlay baab siyaasadeed uga jawaab Puntland af iyo adinba ana wakiil ka ah ana u taagan habarti soo tiradaan ana u dhahay dhageyso Puntland naftayda iyo maalkayga yaala waa ku dhiig baxay 7 jeer aan u dhaawacmay ninna uga xishoon mayo habar baan u cafinayn islaam baan u cafinayn khaniis baan u cafinayn hadii alla ku rooyahay daanyeer reer Wahaabi aan u cafinayn salaanta hadaan ku dhufan karno la joogo ku dhufanaya hadii aan markaa ka fogaana afaan waa adeegaya taas aan idin sheegay hadda idin sheegay Wahaabi oo dhan israacta way waxa tiri Faarax Macalin baa ka sheegtay xaga Faarax Macalin waxa uu sheegay Faarax Macalin waa saaxiibkay waa soo marinaysa waa cid kasta dhiiqa marinaysa Faarax Macalin halka laga maqlayaa war kuma soo hadal qaadin waxna kama sheegin kuma haysto waayahay Sheekh Mustafa ku sheegay ninka la yiraahdo walaalkay ninka la yiraahdo Cabdi Xirsiyo laba sheekh baan laakiin hal mid asleexna anu sheekh waxaan ahay aan ummadda diin ugu soo gabanay sheekh waxaan ahay aan ummadda gaalaysiinayn sheekh waxaan ahay ummadda wacyi gelinayo wanaag u sheegay adiguna sheekh waxa tahay afarta ku qaraabanay ummaddaas maanta noo garnaqaysa ninkaaga ka qaatay ilaahay lacagta ka qaatay inuu inta imaarada muxuu ahaa meesha ka qaata lacag qaato qadar oo Puntland soo weerarayeen shakiga ma jiro udaan idin sheegaya waxay idin faahinaya imaaraad iyo qadar waxay isku hayaan saameynta Soomaaliya khayraadka Soomaaliya maalgashiga Soomaaliya bay isku hayaan in Soomaaliya kala jiitaa isku haya okay qadar waxay lacag ku bixisaa aflagaadeynta xumaynta in Soomaalida la nacsiyo imaaraadka anigu ayuu baan hay reer Puntland baan waxaan iri war 5,000 oo ciidan oo mushaar siiya war dad shacab ciidanka u shaqeeya shaqaalaha mushaar siiya war hubbu siiya beebayaal buu siiya tikniku siiya ciidan hadii aan ku baahay war anigu qadar maxaan ku haystaa qadar caloosha
ninka la yiraahdo Cabdi Xirsi caloosha Cabdiraxmaan iyo caloosha Cabdi Wahaab iyo caloosha Fahad Yaasiin ayay ku filanta taasi aniga wax ay khusaya ma imaaraadka marka Puntland abaal bu kulay waxbayna tartay aniga Puntland meesha imaaraad Puntland hawna taray walaalkay way dagaal buu la galay waa noo duqeeya diyaaradda cunada tuuraysa asaga noo bahalkeeya diyaaradda arkayseen ee dhaawac qaadaysa imaaraad baa gaday kuwii dagaalamayay ee qoryuhu ku xirnaayeen imaaraad baa lacagta bixiyay imaaraadku waa midka noocaas waxa ciidan Soomaali ka ciidan imaaraada ma jooga Puntland ciidan imaaraada kama shaqeeyaan Puntland ciidan sida kan Turki Soom oo kale oo ku tababarta Turkida oo Turkida tababaro oo Turki Soom xiradeeda ku jiro oo kale oo gorgor oo kale ba BNBF oo gorgor oo kale way gorgor soo wiil Soomaaliya ma soo Turkida ma tababarin sababkii wataan Turkidu ma leh soo mishaarka Turkidu ma siiso kanoo taas oo kale way imaaraadku mishaar buu noo siiya waa noo tababaray agaasin bay noola agaasin kuwa Soomaali taliyaasha Soomaali imaaraad meel kama soo galo marka ilaahay ka baq umada beenta ka daa ilaahay ka baqaymayso ninka ilaahay canshuuray oo ilaahay masaajidkiisa laaluush ka qaatay oo ilaahay quraankiisa soo dadka ugu tajiyo kul qaatay bini aadan ka xishoon maye wax yar oo yahay xasanee xogaa yar umadaada reer Puntland ma ka dhalatay damiir dadnimo ku qabto intaas aan ku leeyahay kugu fogaan may wax badan baan hambaynayaa tolnimada keenaysa ehelnimada keenaysa loo noo helaan waan ku salaamayaa assalamu alaykum warahmatullahi